inkastoo mahadhooyinku ay yihiin qaar isbarkan haddana habeenada qaar raaxo ayay kuugu dambaysaa. Barcelona oo adeegsatay hubkeeda Ingiriiska u haysato xilli ciyaareedkan kaasi oo ah Rashford kaasoo heeryadii maalmahan dul taallaya bustihii qoyanaa ku hurgufay kooxda Newcastle. habeenada kale ka tilmaaman ayaana uu qaatay xidigani hore 11 jeer ayuu kooxdan uga hor yimi waxaanay ahayd kooxaha baaya macmiilka u ah marka lagu daro kulankani waa 12 jeer waxaanu shabaqooda taabtay 7 jeer oo kamida. markaad haysato hubkaad ku gaadi lahayd kuwaad hore ugu caal weyday waa sida tani oo kale. ciyaar qurux badan oo Barcelona ay fariin dirtay ayayna ahayd. Barcelona ayaa guul muhiima ku furatay Champions League kadib markii ay 2-1 ku garaaceen kooxda Newcastle United garoonka St Jamesburg. waxaana labada gool u dhaliyay Rashford oo mar kale magaciisa carrada Ingiriis ku xoojiyay kaasi oo Thomas Tuchel uu markhaati ka ahaa. Rashford ayaa ciyaarta furay daqiiqadii 58 isagoo madax ku dhameystiray cross uu soo qaaday Conte si uu hoggaanka ugu dhiibo kooxda martida ahayd. dhowr daqiiqo kadib weeraryahanka reer England ayaa laba jibaaray doonistiisa iyo weliba dhalinta isagoo laadfo ku dhaliyay kubad birta garaacday koor inta aysan shabaqa gelinin. habeenada kale way uga tilmaanayd Garcia markii uu ku hor istaagay Newcastle hore intii energy ay hayeen waliba qaybtii hore daqiiqadii hore energy intii hayeen taftabta miidhan hayeen Garcia ayaa ku simay inuu wacdarahan dhigo Rashford. Newcastle ayaa dadaal samaysay dhamaadkii ciyaarta waxaanay waqtigii dhimashada dhaliyeen goolka calanka oo shabaqa ku hubsaday Anthony Gordon balse ma aysan helin waqti ku filan oo ay barbara ku raadsadaan. natiijadani waxay Barcelona siinaysaa bilow wanaagsan oo heerka kooxeeda iyadoo sidoo kale muujisay muhiimadda Rashford ee kooxdani inuu yahay hubka qarsoon ee kooxaha Ingiriis loo haysto kadib markii uu dhawaan ama uga soo dhaqaaqay kooxda shadaadinta cascas kuwaasoo xidigaha jooga kuwaasoo bustaqoyani saaran yahay inta iminka ka firxatay ee suuqa ka gashayna waa Hojlund hadduu laba ku rooyo McTominay isna ku sii dar Rashford way wada wacdaraynayaan halkaasi mucjisooyin ka dhigayaan mid kastaaba markuu Manchester ka baxo ay hibadiisu soo baxaysa la kala guuranog la kala goosan laguna kala guulayso ragna sida loogu adeegsado way yaqaanaan. marka kulankan si gaar ah isu dul taagno 10 shoot ay tuurtay kooxda Newcastle 6 ayay ku aadisay halka ay 19 shoot tuurtay kooxda Barca 5 ay ku aadisay. kubadaysashada kooxda Newcastle boqolkiiba waa 36 oo kubadda waa la baray halka ay boqolkiiba 64 ka tahay kooxda Barcelona. 282 baas oo Newcastle sameysay 205 baas ayaa halkii loogu talagalay ku dhamaaday. 573 baas oo tiki-taka ah 460 baas ayaa halkii loogu talagalay ku dhamaaday. taakaladu waa 12 iyo 21 faawaladuna sidoo kale waa 12 iyo 12 koornayaasha la kala helay waa kooxda Newcastle oo 6 heshay halka ay Barcelona iyaduna ka heshay 4 koorne. Rashford badhigiisa guud markaynu eegno 64 taabasho 29 agribas 6 shoot 2 shoot on target oo diiradaysan 2 gool iyo dhawilkiisu 3 markaad haysato Rashford oo kale habeenadani oo kale dee kuma bixisin energy badan. inankii farxaan ahaa markii la fariisiyay taageerayaal badan waxay soo qorayeen oo lahaayeen farxaan baadii la fariisiyay Rashford kan busta saaran inay carradani carrayn Ingiriis tahay lama ogino dee ma yaadeer gaali halkan ninkii garanaya baa garan oo ka adeegan. marka la kala guuranog la kala goosanog laguna kala guulayso Barcelona waxay qaadatay habeen qurux badan oo ay ku tijaabisay hubkeeda qarsoona ee bustaha qoyani saarnaa ayay ka fayday go'ii qoyana ee maalmahanba ku dul huwana. Tudnas Falatasion ayaa reer Barcelona. Man City oo qaabishay kooxda Napoli iyadoo 10 nin dhagaha ka jirtay kadib iyadoo xidigoodii hore maamuus iyo sharaf iyo soo dhaweyn loo sameeyay waa Kevin De Bruyne. boqorkiyow soo dhawow ayaa la yiri laakiin lama mahadin oo Napolina kama xishoon macallinkuna kama xishoon maxaa yeelay 21 minute markuu ciyaaray rikoodha ay galeen kadib ciyaarta isbedeshay waa loo yeeray ninkii Kevin De Bruyne garoonka kuma raagin. Man City ayaa si guul leh ku bilaabatay wareegga koowaad ee tartanka Champions League kadib markii ay 2-0 ku dardareen Napoli garoonka Etihad. goolasha waxa uu dhaliyay Haaland iyo Duco habeenada kale uga tilmaanaa oo wacdareeyay. kooxda martida ahayd ee Napoli ayaa dhibaato la kulantay qaybtii hore markii kabtankooda Giovanni Di Lorenzo laga saaray ciyaarta kadib qalad uu Haaland kaga hor istaagay fursad cad oo gool ah. City ayaa jabisay difaaca martida daqiiqadii 56 markii Phil Foden uu cross wali u dhigay Haaland oo madax ku dhaliyay goolka furitaanka.
9 daqiiqadood kadib Duco miisiisu maleeyay ayaa ciyaarta dhammaystiray isagoo gool qurux badan ku dhaliyay kubad uu si xirfad leh ula soo baxay taasoo waraysiyo uu ka qaaday qaarkood difaaciyaanadii Talyaaniga. guushan ayaana kooxda City u horseeday bilow quman oo wareegga kooxaha halka Napoli ay ku soo food leedahay safar adag iyo hayaan halgan adag u baahan. Tudna Spalatazione ya Man City si gaaraan kulanka Man City isu dul taagno 23 shuud oo 23 kuba gantaan lahaayeen oo 8 lagu diiradeeyay goolka ayaa meesha ka dhacay. hal shuud oo kaliya oo midda kalena on target ah ay Napoli tuurtay. kubadaysashada kooxda Man City waa 47%. kubadaysashada kooxda Napoli 26% ayay ahayd 800 iyo 5 baas oo kooxda Man City samaysay 742 ayaa lugti loogu talagalay halkay ku diiradaysnaayeen ku dhamaaday 281 baas oo samaysay Napoli 222 ayaa halkii loogu talagalay ku dhamaaday. taakaladu waa garba siman waa 11 iyo 11 faawladu waa 3 iyo 4 halka ay 9 koorna heshay City 2 koorno kaliya ayaana heshay kooxda martida ahayd habeenku. laakiin habeenada kale waxa uga duwanaa Duco waayo wuu miisiyay wuu mucjiseeyay kuwii shakiga badan kaga jirayna wuxuu yiri habeenadani oo kale ayaa la iga fishaa 66 taabasho 49 baa 3 diriblen 2 shoot hal gool 69 minute oo la ciyaaray. Tinto waxa loo dabaa waa waxani oo kale ayuu yiri Duco Jeremy Duco waa wax kale habeenkan maradiisu waa 10 tahay waan wax kaleeyay sidii lagu yaqaanay. Haaland habeenkan isagana waxa uu ahayd habeen kale 49 giim uu ciyaaray waxa uu jabiyay gabi ahaan rikoorkii Van Nistelrooy kaasoo 50 gool oo Champions League gaadhay 62 giim ayuuna Van Nistelrooy rikoorkan ku gaadhay laakiin 49 ayuu Manchester ku gaadhay rikoorka uu iska haystaa. markaynu eegno iminka waa Haaland oo Nistelrooy ku xigo Lionel Messi isaguna 66 ah Roberto Lewandowski 77 Mbappe 79 la kala gurano laguna kala guuleyso ya dadaalku Manchester dadaalku kuma yara wuu halgamaya wuu cadareynaya. sidoo kale King Kevin De Bruyne ayay ugu yeedhay taageerayaashii Man City ahayd oo ay soo dhaweeyeen boqorkii iyagoo cimaamaday soo dhaweyn wanaagsanna waa loo sameeyay. reer City way u kaceen kana wax ka dhigay alla muxuu haliyay waha alla muxuu ina baray muxuu kayfan ina baray caga dahablu jakator boha ya waqtigiyo bedelka iyo ciyaarta isbedeshay ayaan dacaawa ku xishoonin inuu taageerayaashiisii waayaha badan ay soo wada qaateen ay waqti kale sii wada qaataan. sidoo kale marka Man City iyo Pep Guardiola teacherkii bilaatinta ahaa waa ay guuleysteen habeen qurux badanna way qaateen. sidoo kale kooxdii shadaadinta cascas ahayd war malaha de shaydaankii shadaadintii cascasay ee waramada City xaggan dumarka baayaheelooyinkay u guureen ya Faaduma Sahrada xagooda way wacdareeyeen. kooxdii baraan ahayd ay dhagaha ku dhufteen. Terlan inta la yiraahdo hat-trick bay ka dhalisayba kulankii horena hal iyo eber baa lagu soo kala badiyay ya oo kooxdana soo badisay hadda baraan laakiin qalcadii xumeed markii la yimi de Terlan baa tiri aniga idaaya waa shadaadintii caadiga ahayd shadaadintii waramada City xagaasay tageenba halkan Omar uu isagu la yaaban yahay sidii Itixaad Carabkuba u soo galay ee Man City dariskooda Carabtu iibsatay kooxdan waa laga dagayba ya marka iyaguna halkaasay kala marayaan habeenkii habeenada ka tilmaanaa iyo xubintii kariska iyo kala hadinto anigoo tirikaan idin la socodsiinayay intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa midda inta ku xigtaa inuu ku kulmayno oo iyadana cidiis balaqda aynu karsan doono maryaha ka calaashan doono inta ka horeysa sida ayaa maana Allah.